casriga ah ee webiga Niil waxa uu ka yimid ereyga Giriiga ee Nelos laakiin masaaridii hore waxay ugu yeeri jireen Iteru. Webiga Niil waa webiga u dheer dunida waxaana cabirkiisu dhan yahay qiyaastii 6825 kiiloomitir. Webiga Niilka waxa uu leeyahay saddex laamood oo waaweyn: Niilka Cad, Niilka Buluuga iyo webiga Atbara. Niilka Cad oo ah isha ugu mudan ee webiga waxay ka soo qulqushaa harada Victoria iyo harada Alberta. Niilka Buluugihi waxa uu sababaa daadad sanadle ah waxaana hoy u yahay inta badan biyaha iyo ciidda webiga. Webiga Atbara waxa uu leeyahay saameyn yar maadaama uu qulqulkiisu kooban yahay. Niilku waxa uu biyaha ku daraa badda Mediterranean-ka waxaana dhex maraa 11 dal oo Afrikaan ah waxayna kala yihiin Burundi, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo, Masar, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Koonfurta Suudaan, Suudaanta Khartoum, Tanzania iyo Uganda. boqolkiiba 90 dadka masaaridu waxay ku tiirsan yihiin biyaha webiga Niilka sababtoo ah webigu waa isha ugu weyn ee biyaha la cabo. Juqraafi ahaan Masar waa dal qallalan inta badan dhulkiisu waa lama degaan sida awoodeed webiga Niilku waa kheyraadka ugu muhiimsan ee ka helaan biyo ku filan beeraha ay tabcadaan iyo oontiridooda kumanaan sano. Inta badan cuntada laga isticmaalo Masar waxay ka soo godaa gobolka Delta ee webiga Niilka. Ilbaxnimooyinka hore ee masaaridu waxay fakareen habab waraabin si ay u kordhiyaan wax soo saarka beeraha waxayna la dagaalameen faqriga iyo gaajada. Niilku waxa uu bixiyaa qaaraan cunto iyo kheyraad la intifaacsado waxa uuna unkay dhul beereed waana sababtay in nolol ka suurowdo dhulka saxaraha ah ee dalka Masar. Saadaradeed 90% dadkiisu waxay ku tiirsan yihiin webiga. Markii Umar bin Aas radiyallahu anhu hantiyay Masar xilligii khaliifada Umar bin Khattab radiyallahu anhu waxa uu yimid dadkii reer Masar waxayna ku yiraahdeen Niilku ma qulqulo ilaa aan ku tuurno gabal qurux badan oo aan ugu labisno dhar qaali ah xiranna dahab iyo lu'lu mooye. Umar waxa uu la yaabay sheekadani waxaan u arkayay jahligii carabta ee lagu aasi jiray gabdhaha nool la mida islaamka ka hor. Waxa uu leeyahay ma waxay dadka reer Masar iga doonayaan inaan haweeney qurux badan oo nool ku tuuro webiga Niil. Cajiib. Umar bin Aas ayaa reer Masar ugu jawaabay tani ma aha wax suuragal ah ee ku haboon dad islaam ah. Markaas ayuu warqad u diray Umar bin Khattab radiyallahu anhu isagoo uga warramay sheekadan la yaab kale waxa uu sugay ilaa uu ka helay jawaabtii amiirka muuminiinta. Warqadda gudaheeda waxa ku jiray fariin loogu talagalay webiga Niilka oo uu qoray Umar bin Khattab waxayna u qorneyd sida tan: laga soo diray Umar bin Khattab amiirka muuminiinta kuna socota webiga Niilka ee Masar. Haddii aad isaga qulqusho tusaale haddii aad isaga soo qulqusho Ethiopia oo ah halka Niilku ka bilowmo ha soo qulqulin haddii Alle keligii ah oo qahaara uu yahay kan qulqulkaaga alkumay kuna socodsiinaya waxaan ka bariyaa eebaha kelida ah inuu ku socodsiiyo. Umar waxa uu warqadii ku tuuray webiga Niilka. Dadkii reer Masarna waxay diyaar u ahaayeen inay ka guuraan Masar sabab la xiriira abaarta daran. Hase yeeshee markii Umar warqadii ku riday Niilka eeba waxa uu ku amray webiga inuu qulqulo sidaas ayuuna webigu ku qulqulaa teer iyo maanta.